السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر وهذا عشر كينشانات أو أينو ما أنت كبران تونو update in SQL Server مركانو لين هاي update كحويان وموديفاين وإن ندي تدي tables كنا كشرتي وحك بدل كسمينه وأمنا update كرينه بالمثل ما كسوقات واحد وقتي إنه ما كعقل دمي ما كي كعقل دمي يتكون update كرين سكيس صحراها إنه أوت صار يلا كقادم دون حتى اللي هيرادو هذا updating وحوليه سونا سينتاكس يحب قرالات وصعده المثل سنة وكله سينتاكس كيسنا يقرميه وحين قرنا إرجع update كتبنا وحين قرنا table ك داتا update كرينا يكوشرته كتب set بين قرنا كتبنا column كأنه دونين إنه update كرينا إنه قرنا كتبنا value كأنه update كرينا إنه يصير راعينا حقا هو سنة وحقو قرن إنتنا لمده لكن سوى حلا صعدة where condition أو where بس رعنيسا بالمثل المكاتنو هل كان يرفع فاهنو كور كنسر هدي أترى هذا مك update أتيلكم مجيء سقرته كدينا set أترى هذا كدينا حتى الكولوم كا first name كقرايتلي كدينا value بس كشفت table كا دمان first name كيسوا لو وحي قف أورم waxau ka wada dhigi doonaa ereyga aad halka soo gelisay value-ga aad halka soo gelisay waa ka wada dhigaya because of meel sheegin oo manada cayimin oo madaranin inta ka dhig intan ka dhig ama ka dhig oo wax aad ku kala xadidin ma jirtay dhammaan table-kaagi column-ka aad sheegtay wala wada update gareynaya kan kale isagu waxa weeyaan column-ka aad dooratay ee aad halka value-giisa ku shubtay kadibna aad tiri where id giisana aad sheegtay ama column ay dhammaan table-ku ka siman yihiin oo lagu kala garanayo aad halkan ku gelisay kaasoo kale tay lagu update garan doonaa bilmatalan imika tusaale ahaan oo kale aynu tagno database-keeni aynu raahno select si aynu table-keeni uga soo doorano kadibna aynu execute niraahno halkan hoose error ayuu noogu soo saaray sababtoo ah halkan inooma doorna table database-keeni baro database simple xaggan sare ayaynu tegaynaa halkan ka soo furi jirnay awal hore marka halkan aynu tegaynaa waxaynu ku qoraynaa use kadibna waxaynu qoraynaa database-ka aynu isticmaali doono oo ah baro database kadibna highlight baan leenahay execute baan leenahay xaggan hoose ayuu noogu soo bandhigay markaa table-kii ka koobnaa argeysi daatadii ku jirtay halkan casharkeeni inoogu dambeeyay ayaa waxa aynu specific columns baynu wax gelinay waxaynu ka boodnay genderkii cibaado iyo last name-kii cibaado oo aabaheeda haddaba labadan imika ayaynu update garaynayna bilmatalan isku mar ayaynu update garayn karaynaa specific column wada update garayn kartaa labadan column hal mar daatadooda wada gelinti kadib waxaanu qoraynaa table-ka ay ku jirto daatadiina update gareynaa oo ah hargeysa kadib waxaanu qoraynaa ereyga set imika cibaado last name-keeda iyo genderkeeda ayaynu sheegaynaa marka waxaanu qoraynaa column-kan last name oo waxaanu qoraynaa lname equal baan leenahay laba single quotation maadaama uu string yahay kadib waxaanu halkan gelinaynaa ereyga cibaado aabaheed oo ah cadaawi بالمثل كسوقات هكذا بين لانهاي وحين قلنا كدبنا جندر كده أيون هلكن قلنا equal بين لان هذا لبس single quotation وعبادة وامهاي وفيميل أيون لان إما كا هتيجي نسيان كويس كرينو رمان last name كان جندر كان وحلا قوة اللي بدنا عيب هاي تولي عداوي iyo female baa laga wada dhigi doonaa because of halkan ku minu sheegin where condition-kii haddaba aynu raacino where id baynu leenahay uu kuula mid yahay id-gu imika id-gu khasab ma aha haddaynu idhaahno where telephone equal 123 waanoo qaadanaya bal aynu ku tijaabino aynu ka baabina id-ga aynu idhaahno where telephone equal telefoonku kuu leeyahay عبادة تلفونكيدي حويان 1 2 3 4 هل كان ينكو قرنا مركا 1 2 3 4
kadibna line-kan ayaynu highlight saaraynaa inagoo oo taabanayna shift iyo home. line-kaas marka highlight inoo saarmo execute baan leenahay marro effective body kadib xaggan sare ayaynu tegaynaa select all from Hargeysa kadibna execute baan leenahay. imika inagoo xaggan ID kumaynu sheegin ee waxaanu sheegnay telefoonka macnihii waa column ka mid ah kulamada cibaada isticmaalayso oo telefoonkeedii ayaa jira meesha marka cibaada cadaawi maadaama specific ka dhignay wata la soo geliyo halkaa sidaan si la mid ah imika deenu doonayno column-kaas oo kaliya ta update dirno inagoo isticmaalayna by ID isagana sidaan si la mid ah xaggan aynu tegaynaa waxaanu leenahay update Hargeysa oo ah table-kii kadibna set baan leenahay kadib halkaa waxaanu gelinaynaa last name-ka oo waxa aynu doonaynaa in aynu bilmatalan Cabdillaahi aynu ku darno Cabdillaahi Cabdi Tumaal oo kale oo equal baan leenahay laba single quotation baan leenahay Cabdi Tumaal. marka haddii aynu sidan ku isku yarayno dhammaan name-kan wuxuu noqonayaa Cabdi Tumaal midhan laakiin aynu doonaynaa inuu Cabdillaahi noqdo Cabdillaahi Cabdi Tumaal bas kadibna waxaan leenahay where ID-ga Cabdillaahi wala mar laba kadib halkan aynu loo gelinaynaa kadibna highlight baan leenahay execute kadibna select all from Hargeysa waxa Cabdillaahi Cabdi Tumaal lagu soo beddelay. marka sidaas ay ku kala duwan yihiin imika haddaba aynu eegno bal marka aan where ID la raacinayno tutors ama where condition-ka laga reebay baynu dhahnaa. marka waxaan qorayaa update kadib waxaan qorayaa Hargeysa oo ah table-ka navigation doono kadibna set baan leeyahay kadibna column-ka sheegay telefoonkan ka wada dhigaya isku wada number inagu waxaan gelinayaa bilmeter ka soo qaad 1 2 3 4 5 6 7 toddobadan number ayaan gelinaya kadib adigoo halkan jooga set line-kan oo kale highlight u tiraahdo waxaad taabanaysaa shift iyo home kadibna execute baad taabanaysaa. halkan waxa uu kugu soo saaray 3 rows effect macnihii daytadeenu table-ka inuu jirtay waxay ka koobnayd 3 row 3 row oo la geliyay marka balaynu soo dooranno select all from binary marka waxaad ku aragtaa dhammaan telefoonada waa isku wada mid because of halkan kuma sheegin where condition totals farqiga u dhaxeeya marka waa ka markasta ku dadaal inaad raaciso where condition-ka sababtoo dhaatadaadii oo dhan haddii kale ka khalkhalaysa oo carqalad bay kugu keenaysaa intaasoo kun oo qof haddii kugu jireen ama intaasoo kun oo number ama intaasoo kun oo data ama intaasoo kun oo waxoo kala duwan hal mar kaliya ay ku xiran tahay update-kaas oo bilaa weer siiso marka be careful. halkana waxaan ku joojinaa markaa cashirkeennii gaabnaa ee ku saabsanaa update. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.